waxaa xalay magaalada caasimadda ee Muqdisho la keenay meydadka shacab ah oo aan waxba galabsan oo galiinkii dambe ee shalay ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose. 7 ruux oo dhammaantood dhalinyaro ah ayaa meydadkooda la dhigay cisbitaalka Madiina ee Muqdisho, kuwaasi oo lagu laayay deegaanka Golweyn oo hoostaga magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha Hoose. ehelada dadka la xasuuqay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dadka la dilay aysan waxba galabsan, isla markaana ciidanka AMISOM ay si bareer ah u toogteen dadkaasi oo qaarkood kala soo baxeen beer ay ku sugnaayeen. sidoo kale ehelada ayaa sheegay in dadka markii la dilay la isugu geeyay hal goob kadibna lagu riday god iyagoona markii dambe la qarxiyay, waxaana falkaasi ay ku sheegeen inuu yahay mid fool ah ayna aad uga xun yihiin dhibaatada dhacday. dowladda federaalka ayay ugu baaqeen inay ciidanka AMISOM ay wax ka qabato dhibaatada shacabka ay u geystaan, waxaana ay tilmaameen ehelada in meydadkan la aasi doonin ilaa cadaalad ay helaan, isla markaana dowladda ay ka hadasho falkaasi. waxaan cabasho ka nahay ciidanka AMISOM oo maantayna dilay 7 qofood ayay 4na beertooda kala soo baxeen. waxaa ka mid ahaa odagii beertiis ka lahaa oo Cumar Xasan la yiraahdo, Cumar Ganey. waxaa ka mid ahaa shaqaalihiisa 3 nin oo baabuur uga haleysnay oo baabuur samaysanayay. dadkii waa la dilay, waa la soo aruuriyay, madaxa xabad lagala dhacay. isla markaas 100 mitir meel u jirta ayaa loo jiiday, miino ayaa la kor saaray. markii meel la isugu geeyay waa lagu qarxiyay. waa arin routine mar walba dhacda bishii ama 15kii casho raashinay wadada marsiyaan waxay ku dilaan dad, laakiin maanta waxay ahayd arin uguba oo nagu cusub. haddii aad dhig leedihiin dawladda shacabka Allahu akbar ummadda Soomaaliyeed waa inay noo qiirooto, waa inay wax nala qabato. waxaa ila dhashtay wiilka 2 lugood laga helay asagoo jiifo ayay AMISOM guriga ugu gashay soo baxsatay. markay soo bixisay kadibna waa xabadeysay, xabadihii kadibna inta isku xirtay 6 nin ee god gelisay ee miino meesha ku jirta ku qarxisay. dawladda waxaan ka codsanaa AMISOM waana dhameysay haddaan nahay gobolka Shabeellaha Hoose. safar ma aadi karno, beerahayna ma qodo karno, ari ma raaci karno, la mar daajisan karno. dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay wax ka qabato. si kastaba ha ahaatee ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sidaan oo kale gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ugu xasuuqay dad shacab ah, waxaana falkii dhacay shalay uu ka dambeeyay kadib markii qarax miino lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada AMISOM. dhanka kale qoraal la soo dhigay bogga Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in xilli ay ciidamada Uganda ay ilaalinayeen wadada weyn ee isku xirta Beledul Amiin iyo Golweyn ee Shabeellaha Hoose in Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah soo qaadeen. AMISOM ayaa lagu eedeeyay in dad rayid ah ay ku laayeen meesha weerarka ka dhacay agteeda, balse qoraalka AMISOM ayaa waxaa ku xusan intii isdifaacidda ay socotay 7 argagixiso ayaa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacay, xubna waa la soo qabtay. AMISOM ayaa waxa ay bogaadinaysaa geesinimada iyo howlgalka degdega ah ee askarteeda oo mid ka mid ah uu ku dhaawacmay, ayaa ku xusan qoraalka.